Kalimaad ayaa laga helay wadada Afgoye. askar diyaar miya Haa, meeshay ku diyaarsan yihiin. waad mahadsan tahay ay qurxley waqti ma hayde hayay igu dhiib halo abo aniga imtixaanka natiijo fiican ay keentay abaalmarintaadana waa diyaar maya aba hadda waqti kuma sheegi karo laakiin sida ugu dhaqsiyaha badan markay arrimahan iga soo kala yaraadaan aniga meel allaale meesha jecesha ku geenayo okay inta wata miyay jirtaa Maida. ninkan teegama dilin waxaad samaysaan ambulance waca sidoo kale sawir ka qaada subax wanaagsan wanaagsan magacaygu waa dambaare maxamed waxaan ka socdaa waaxda dambaarista waxaan baaraynaa meed laga helaa halkan wax dhaqdhaqaaq ah oo aad xalay aragtay ma jiraan wax marka mudan okay waa mahadsantihiin xalay mar ay saqar xataa waqti dambe oon seexa maagay daaqada ay furneeda daaqadaan aaday daaqadii markaan daaqada soo xiriisnaa waxaan arkay gaari cad oo halkaa taagan xaafadan cabsi waa ahayd ninkaygana wuu maqnaa tvdii waxna waa iska damiyey daaqadana waan xirtay waa ka dhacwaa seex gaariyaashaad aragtay waa gaariyaad aragtay ma wuxuu ahaa gaari Harriet gaari Toyota gaari Corolla gaari Nissan gaari nooca aragtay wallahi ana gaariyada magacyadooda ma kala aqaanin laakiin inuu gaari cad ahaa un baa arkay xoogaa gaaban gaari cad aragtay markii inta meesha ku aragtay السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة سودو ولا maxaa ka gadaa waxaan ahay dambaar maxamed cali ma garanaysaa cali ha si wanaagsan oo garana allahu naxariisto meydkiisa ayaan maanta helnay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun aan islaha wax un way jiraan weligii shaqo sidaan kale muusan ugu soo daahay waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo goorma kugu dambaysa cali xalay markuu shaqada kasii baxay ugu dambaysa cali halkan muxuu ka qaban jiray halkan maamulan oo ka ahaa midda kale wuxuu ugu aadanaa adeer goor dhowna nolol cusub oo listo ugu guursaday cid ay isdagaalsanaayeen ama dad ay cadaawad ka dhaxaysay may ma jiraan taleefankaaga ma dhiibi kartaa xalay shaqada markaa ka tagtay halkeed aadee si toos waxaa u aaday gurigayga xaaskayga carruurtayda waqti kala qaadanaya xaaskaaga ma wici kartaa halo waxaan ahay dambaare ninkan xaaskiisa miyaa tahay magacaa xalay meeqa saaca guriga yimid kadib waad iska seexateen okay waad mahadsan tahay waxaan kaa rabaa inaad ii sheegto adresska guriga cali oo deganaa iyo telefon numberkaaga آسيا؟ ها waxaan dambaare maxamed cali xaaskiisa ma tihin aniga waa maxaa jiro allahu naxariisto cali meydkiisa saaka ayaa wax laga helay wadada Afgoye yaa cali wuu dhintaa ma dhici karto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun goorma kugu dambaysay ninkaaga
markuu shalay shaqada aadaya waaba xal uu ii qaban waay anna waxaan sidee shaqadu ku daaya waa iska seexda okay dad ay cadaawad ka dhaxaysay ama cid ay isdagaalsanayeen miyaa jirta maya qof la wada jecel uu ahaa taleefankaaga may dhiibi kartaa waxaan arkaa number ay ku qoran tahay Cali dhowr jeer ayaad wacday kuma aha Sayid Cali wiil asxaabnay waay maxaad ka wada hadlayseen markii la guursanay jaamacadda iska xiray waxaan rabnaa semesterkayga dib u furto arrimo jaamacad ku saabsan iskala hadlayna xaguu degan yahay ma garanayo jaamacadda un bas ka seenay numberkan ayuu wataa soo maaha ها lambarkan oo daaran okay waad mahadsan tahay waxaan waa baaris annaga ayaa soo baarayna ciddii dishana soo cadaynayna wixii macluumaadna kula soo socodsiinaynaa oo maadsantee waxaan rajeynaa cidda ninkii dishay inaad dhaqsi soo qabataa meel xun oo dambeynayso ma taqaana Asiya واقعنا بس جامعة يعني goorma kugu dambeysay وقت دير ما هذا ma adigan xal la hadal ها صح على مرة اللي صار شيء maxaad ka wada hadlayseen فيلم ندخل اسكو دير ويدينيس Asiya ninkeeda midkiisa ayaan saa ka helnay adna waxaad tahay qofkaan ugu shakisanahay dilkiisa أنا محايل شكينة بلي جامعة على أبي adiga waxaan kaaga shakisanahay iyadoo waxay tiri waxaan ka wada hadlaynaa arrimo jaamacadeed adiguna hadda waxaad ii sheegaysaa inaad ka wada hadlayseen arrimo Netflix iyo film ku saabsan صح أنا من جامعة ولا هذا الشيء لكن فيلم كانوا يويديسي أنا حاسس مساعد بيه لولا امتحان يقول صوص هذا في نالك سمعت كده بس كنت يعرفه يعني إن كده دل كده محايل يعني أنا قلت لهم يا أكاتلي سيحكيين gaari ma leedahay gaarigaaga waa nacay بريم يخلينا hadda isaga maad ka timid آه okay iska bax gaarigaaga noo reeb maris ayaan ku sameynaynaa صحيح taliya anaga gaarigaa raadinayna soo cadaan ma ahayn ninkan gaarigiisa waa qalin waxaan ugu baahanaa gaariga gareyga habeenkii xilli dambe marka meel dheer laga arkayo muuqaalkiisa wuxuu ekaadaa sida mid caddaan oo kale ah tali gaariga bariis waxaa u dhibnay qolada Faran Science ayagaan waxaa natiijo ka sugaynaa okay waa mahadsan tahay macanta waxaa jeceshaan oo kale dooqaaga waa dooqayga okay iga daa ciyaarta I love you bye tali qolada Forensic Science gaariga way baareen waxaan ka heleen dhibco dhiig ah dhibcaha markaan baaranayn waxay la mid noqdeen kuwa marxuumka waa intaan u baahnayn Sayid Cali ha loo yeedho Sayid Cali baaritaankan ku sameynay gaarigaaga waxa uu muujinayaa ku lug lahaanshiyaha dilka gaariga waxaan ka helnay haraadiga dhiigga marxuumka taasoo cadaynaysa in adigu aad meydka soo qaaday معقول ما سيعطي انت سكاريكا ويلي كرتا forensic science waa qayb cusub oo ka mid ah dembi baarista waddankeena number dhow ayaa la keenay cadeymahaas oo dhan waxay muujinayaan in adigu aad tahay dambiilaha loo haysto kiiskan waxaan dhan ayadaa ka dambeysay anna waxaa wii keliya ma Asiya ayaad ka hadlaysaa ها ayadii aan xiriir raaya lahayn reerkeeda ay ku qabso reerka inay guursato ayadana kuma faraxsaneen anna waa isaga samir jecelkeed xiriirkiinu goorma bilowday mar kale dhowr bilood kadib ayay soo wacdeen ayadoo ilaahay isninkaan kuma qanacsanen noloshana kuma jiri karo kadib maxaa xigay markaa kadib waxay ugu dhahday ninka aan dilna anigana kuma raacan wallaahi waa ka diiday laakiin say uga celinaysay way iga dhaadhicisay iga sheekay habeenkii dilka sidee u dhaceen way ii yeertay ayadoo ii sheegaysa inay siisay daawo lagu hurdo waanu imid waxaan isku daynaa barkin ku dilo wuu igu soo kacay wuu igu xoog badnaay asagoo iga garaacay ayaa gadaal kaga timid Aasiya mindi ayay dhabarka ugu dhufatay
أنا واحد ناقصنا وفير وقبدي. waad xidhan tahay maxkamadda ayaad sugaysaa تلي أنا واحد بي ملي أيضا يقول قصبتي ولي رجع مع دكتور inaas dhahdahays maxaa ku jeceshay ani diyaara ahay sawal baabka la garaacayo saan lagu garaacayo asiya waxaan warqad fasaxa ka wadanaa maxkamadda taasoo noo ogolaanaysa inaan gurigaaga baarno gurigay maxaa laga baaraa taas adiga shaqadaada maaha adigu waxaa tahay eedaysanaha dilka kiiska ninkaaga saldhiggaa la geeyo waxay fahansiiyey maxaa alla wada saldhiggaa la geeyo taliya barmar waad fiiri midida ma noqon karto midida lagu dilay aad ayay weyn tahay mididana waa midi yar xaggeen ka raadinaa guriga dhan waa ka weynaya okay gurigo dhan waan kasoo eegnay laakiin banaanka ma aanan baarin taliya tan waa macquul qaybta cadeymaha ku dar tali mindid waa la baaray markii la baaro waxaa laga helay dhiig dhiiggan wuxuu noqday marxuumka dhiiggiisa hubkii lagu dilayna waa kaas waa mahadsantihiin hello isdiyaariya galabta banaanka aadaynaa adigii gabadha gabadha niigu dhiib hey baba sida cali wuxuu xaqiijiyey in damigaada wada geysateen adiga marxuumka guurkiina ahaa mid qasaba sidaa darteedna ficilkaada u geysatay waa been tali been adig sheegoyaan aninkayga waa jeclaa say ku dilaa ani waxaas miga suurtoobaan asiya damigan iska qiro sayid cali aa ku markhaati furan maxaa sameynaa kartaa saad u dilaa sigraa sida aniga dambeyle ma yihiin hadda waxaa tahay eedaysan oo la haysto kiiskan mana jirto wadda aan hayn inaan ku xirno taliye qof dambi galaa la xiraa aniga dambeyle ma yihiin midida aan kusoo aragnay gurigaaga waxaan ka helnay halaadiga dhiigga marxuumka sidoo kale cadeymaha aan ka helnay teleefonkaaga iyo baarista aan ku samaynay gaarigii Sayid Cali iyo dhammaan xiriirka Sayid Cali iyo adiga markaan isku wada keennay waxay caddaynaysaa in dambigan aad ku lug leedahay Asiya mana jirto meel aad uga baxsanayso maya waxaas xaq maahan tali ani been adig sheegoyaan yaa ninkayga ma dilin been adig sheegoya tali ani ninkayga ma dilin yaamin tali ani ninkayga ma dilin been adig sheegoyaan ninkayga ma dilin hambal iyo taliye waad mahadsan tahay horaa waxaa loo yidhi labadii xaqdarro ku heshiisa bismillahi baa isku dirta aba haddaan soo baxayaa